madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wata diyaarad helicopter ah ayaa maanta ka degay magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan halkaas oo kula hadlay boqolaal dadka deegaanka ah ciidanka kacdoonka sameeyay ee deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuuna madaxweynuhu dadkii uu maanta Maxaas kula hadlay ka ballan qaaday in dawladda Soomaaliya ay dadkaasi si degdeg ah u gaarsiin doonto adeegyada ay u baahan yihiin kadib markii laga xoreeyay khawaarijta Al-Shabaab madaxweynaha ayaa saakay ka baxay magaalada Muqdisho isagoo wata diyaarad helicopter ah waxayna madaxtooyada Soomaaliya shaacisay inuu isaga gudbi doono gobolada Hiiraan, Galgaduud iyo Mudug magaalooyinka Wasil, Qaayib, Cadaado iyo Dhuusamareeb ayaa lagu wadaa inuu ku xijiyo safarkiisan uu ku marayo gobolka Hiiraan oo ugu hormaray magaalada Maxaas ee gobolkaasi sida madaxtooyadu ay shaacisay waa berigii hore ee saakay madaxweynuhu waxa uu warbixino ka dhageysan doonaa markii uu gaaro furimaha dagaalka saraakiisha hogaaminaysa ciidamada dagaalka kula jira khawaarijta Al-Shabaab ee ku sugan goobaha laga saaray kooxdan naflacaariga ah ee laayaanka ah ee dadka dhigooda banaysatay wuxuuna madaxweynuhu ku dhiirigeli doonaa dadka uu u tagay dadaalkooda nafurnimada ah iyo difaaca dalkooda isagoo ka ballan qaadi doona inuu xaliyo baahiyaha ay qabaan isla markaana ay dawladdu garab istaaga buuxa u muujinayso dadka dagaalka kula jira kooxda khawaarijta ah ee Al-Shabaab magaalooyin ay ugu horeyso Wasil maanta waxaa ka jira diyaar garow xoog leh oo lagu jiro soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo halkaasi safar ku tagaya ciidan iyo gaadiid xoog leh ayaa maanta lagu soo bandhigay degmada Wasil waxaana ka jira diyaar garow buuxa oo dadku ay ugu jiraan sidii ay u soo dhaweyn lahaayeen wafdiga madaxweynaha Soomaaliya maalmaha soo socda waxaa lagu wadaa in la dardar geliyo dagaalka lagula jiro khawaarijta Al-Shabaab oo ka soconaya ilaa 3 jiho oo gobolada dhexe ee Soomaaliya ah Galgaduud, Koonfurta gobolka Mudug iyo bariga gobolka Hiiraan ayuu ka soconayaa abaabulka ciidan ee kooxda khawaarijta ee Al-Shabaab looga xoreynayo dhulka ay ka haystaan dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmihii la soo dhaafay safar ku jiray ayaa hadda waxa uu soo jeestay hogaaminta dagaalka lagula jiro khawaarijta Al-Shabaab madaxweynuhu waxa uu caawa ku hooyanayaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug halkaas oo kula hadli doona bulshada sidoo kale waxa uu mari doonaa deegaano muhiim ah oo ay ku sugan yihiin ciidamada dagaalka kula jira khawaarijta Al-Shabaab waxaana lagu wadaa in berri wixii ka dambeeya duulaan toos ah lagu qaado khawaarijta Al-Shabaab isla markaana buraashadaha loo biyeysto sidii khawaarijta looga xoreyn lahaa deegaanada ay uga sugan yihiin deegaanada dhaca bariga iyo koonfurta Galmudug iyo deegaanada Hirshabeelle madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda xirtay tuutaha waxa uu dhiirigelinayaa dadka deegaanka iyo ciidamada qaranka si kooxda khawaarijta ee Al-Shabaab looga adkaado isla markaana uu mir dhalo dadaalkiisa iyo sidoo kale baaqiisa in kooxdani laga cirib tiro Soomaaliya wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa garab taagan madaxweynaha oo safarkani ku weheliya waxaana daqiiqadaha iyo saacadaha soo socda idin la soo wadaagi doonaa khudbadaha muhiimka ah ee madaxweynuhu uu ka jeedinayo furimaha dagaalka